iyadoon la ogeyn xataa shidaal ay ku laabtaan iyo gaas ay ku laabtaan inay haystaan iyo in kale in hawada laga celiyo isla markaana qatar ay gashay nafta dadkii iyo askartii Soomaaliyeed ee diyaaradaha saarnaa runtii waa dhacdo aad u fool xun waana cambaaraynaynaa cid kasta oo mas'uuliyaddeeda lahaydna waxay ka shaqaysay arrin dil ah oo isku day oo suuq ah ayay ka shaqaysay intaa markaan ka soo gudubno halkaas cambaaraynta kadib dalka Soomaaliya maanta wuxuu barayaa marxalad u adag hadday ahaan laheeday abaaraha iyo maxaan ku raaday dhibaatada maanta ummadda Soomaaliyeed miyi iyo magaalada ka jirta qoonka iyo gaajada iyo baahida marxaladda kala guurka laba bilood kaliya ay u hartay hay'adihii dastuuriga oo aan la aqoonin halka ay waxaan ku dambeynayaan iyo sida marxaladdan loogu gudbayo khilaafaadka u dhaxeeya maamulada qaarkood iyo dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta kale ee dhammaan oo meeshii ugu dambeeyay maanta maraya faragelinta shisheeye naftigeedu oo meel adag ay taagan tahay maanta oo aan islahaynay aqliga madaxweynaha Soomaaliya iyo saaxiibadii waa soo laabtay waaqacayna u soo laabteen arrimahaas jira dhammaantoodna waxaa lagu wajihi karaa inay garteen midnimo iyo wadajir iyo ummadda Soomaaliya gacmaha soo qabsato in maanta xaaladda mar kale ay cirka ku raraan oo dadka baryaytamaya oo waqtigeeda dagaal iyo maxaan ku raahdaa kala qaybsanaan iyo xaalad adag lama jooga lahaana ay noqdaan maanta mucaaradkii waxa weeyaan runtii mucaaradkuna waa bogaadinaynaa waana cambaarinaynaa maxaan ku raahdaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba habdhaqanka foosha xun oo mas'uuliyad darrada ay ka muuqato oo maxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliya uu sii kala geynay waxaad ogsoon tihiin madaxda ama golaha mustaqbalka Soomaaliyeed in ay ku shireen Kismaayo uu ka soo baxay codsi loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliyeed lagana codsaday muddo 30 cisho gudahood inuu ummadda Soomaaliyeed isugu yeero lagana heshiiyo doorasho heshiis lagu yahay waqtigeeda ku dhacdo niyad wanaaga laga rabay inuu shirka ku soo dhaweeyo madaxweynaha ma aysan dhicin muddadii 30 cisho ahayd oo dhamaatay oo hal habeen ay ka harsan tahay ayaa la soo tuuray warqad la yiri shirkii ayaan dhignay isla markaana idoon laga heshiin goobta shirka ka dhacayna warqadda la soo raaciyay ayadoo ogsoon tihiin waaraano sharci darra in hore loo jaray shardi kuma sixrin wadashii mustaqbalka Soomaaliyeed way soo dhaweysay ayadoo qiimeynaysa duruufaha uu dalka ku sugan yahay annagoo ka dareensan warqad hanaanka loo soo qoray iyo waqtiga lagu soo aadiibay in la diido in madaxweynuhu rabitaankiisa uu yahay shirkuna uu baaqdo isla markaana eed uu dusha iyaga ka saaro marxalad dalka uu ku jira ayay aqbashay madashii mustaqbalka Soomaaliyeed markay aqbaleen baarlamaankii kalfadhigiisa 7aad oo xirmay oo shuruucda baarlamaanku dhammaan ay farayaan wax alla wixii shuruuc labada bilood ugu horeeyay laga shaqeeyay inay tahay ayaa la yiri baarlamaanka kalfadhigiisa dib ha loo furo dastuurkiina laga shaqeeyo ayadoo haddana ujeedada kale laga fasir kara ay tahay in wixii laga heshiin lahaa oo doorasho iyo dastuur baaha hadiiba dir buuq kale loo furay dib loo furay in madashu ay diido ayna tiraahdo ninkaan heshiis ma rabo waxba waqtigiisa naga lumin har yiraahdaan idoo ujeedku u ahaa haddana markii tii ay iska socotay oo wixii ka dhacay ogsoontiin arbacadii oo ku beegnayd 28kii in mar kale saakay iyadoo shalay lagu ballamay lagana heshiiyay taankiisii iyo ciidamadii iyo maxaan ku raasay ku imaan lahaayeen oo labada madaxweyne dowlad goboleed iyadoo laga heshiiyay saakay hawada in laga celiyo waxay mar kale ku tusinaysaa marka haddana mar kastaba inay ka go'an tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uusan rabin khilaafaadka siyaasiga ee jira in xal laga gaaro waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed aan u cadeyno waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waa marqaati dalkan iyaga iskala awooddan iyaga ka bilaabtaa kuna dhamaataa qofka qaldan ee dalka burburinaya kala geynaya ee u nugleeyay cadawga maanta gudaha iyo dibadba leh kuwa kale ee u malafsanayana u sii nugleynaya inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud yahay halkan aan rabin lana rabo inaan taan gacmaha is qabsano odaygaas dalkan ka badbaadino arrinkaas halka markaan ugu gudbo waxaan rabaa inaan maanta yani runtii si adag u cambaarayo guddoonka baarlamaanka oo noqday aaladda koowaad ee dalkan lagu kala geynayo laguna burburinayo oo waxa lagu qaybsamay hanaanka dastuurka bilowgiisii 2023 bishii Agost oo hanaan sharci aan ahayn uu u bilaabay asigoo fulinaya rabitaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalkaani seed ku joogtaa waxaan ahayn aqli iyo garasho kale iyo xisaab kale aysan ugu jirin xisaabta waa ka xunnahay halkii baarlamaanka oo dalka parliamentarian weeyaan korjoogtaynta iyo toosinta hay'adaha fulinta lahaa in wax allaale wixii madaxtooyada looga soo yeeray in dhalaan inuu u fuliyo horan dadku ugu kala diray maanta inuu yiraahdo xildhibaanaan mamnuucay kuwana degniin ayaan faray iyadoo uu ku soo aadiyay iyadoo maanta wada laga celiyay dowlad goboleedyadii wafuudoodii shirkina la carqaladeeyay in maanta asigana loo isticmaalo mar kale
si carada iyo kala qaybsanaanta iyo shirka qaadacaadiisa loo xoojiyo inuu asigana maanta baarlamaanka khalaasa ka abuuray waxaan rabnaa biri oo isniin ah ayaa baarlamaanku ballansan yahay 18 qofood uu ka mamnuucay kuwa ka badan ayaa jooga wax alla wixii biri meesha mas'uuliyadda ka dhacana aadam madoobaya adduunka akhriga lagu xisaabtami doonaa insha Allah ta'ala sidii shalay ama daraad wax ka daran ayaa ka dhici doona sababtoo tahay sharcigii hadii laga leexday xiroosaadkii golaha shacabka oo tilmaamayay wax alla wixii shuruuc in laga shaqeeyaa labada bilood ugu horeysay ee laga leexday oo qaanuunkii dhinac la maray waxay noqonaysaa markaan inaan ku wada shaqeynaahi qaanuun la'aanta aadan madoobe wuxuu kursigaas ku fadhiyo xilbaanadu ku shir gudoominayo loogu istaagayo loogu ixtiraamayo waa qaanuunka dastuurka iyo xiroosaadka golaha shacabka ay degsadeen isla markaana la ixtiraamayay 100 jeer ayaa si qarsoodi ah oo maxaan ku raahdaa gaar ah iyo si toos ahba loogu sheegay oo la yiri gudoomiye mas'uuliyadda baarlamaanka aday ku saaran tahay baarlamaankii waxaad ka dhigtay wax hoos tagta madaxtooyada Soomaaliya ka joog ayaa la yiri maanta waxaa jira mooshin dhameystiran oo gudoomiyaha laga qoray waxa ayaan darro ah xildhibaanadii mooshinkaas qoray in ay ka fariisteen yaa loo gudbinay ay yiraahdeen labadii gudoomiye ku xigeen bal la yiri mid qabanaya kuma jiro mooshinka haduu sharci yahay hanaankiisana soo dhameystirmo horena way u dhacday inay diideen hanaankiisana la dhameystiro qofka laga keenay maahan qofka ku xiga ah inuu qabtaa waajib saaran waa baarlamaanku markuu insha Allah ta'ala wixii hadda ka dambeeyo dalku wax alla wuxuu shuruuc lahaa iyo wuxuu dastuur lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiye aadan madoobe ayaa laalay wax alla wixii mas'uuliyad darro ka dhashana mas'uuliyadooda iyaga qaadaya ummadda Soomaalidana waxa la rabaa inay garab istaagaan dadka xaqa u hiilinayo yaa ayyuhalladina aamanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqiin dadka runta sheegaya ee xaqa ku taagan ayaa la rabaa inaad garab siisaan oo garab istaagtaan kuwa daalimiinta ee jidka ka leexday ee dalka burburinaya rabitaankooda shakhsiyadeed ee cumalada ah maxaan ku raahdaa rabitaankooda shakhsiga oo madax marayna in runta loo sheego awoodeena aan sukeeno aad iyo aad ma santihiin intaas isugu kin yeernay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan siinayaa xildhibaan jeso annagoo ka dareensan warqad hanaanka loo soo qoray iyo waqtiga lagu soo aadiyay in la diido in madaxweynuhu rabitaankiisu uu yahay shirkuna uu baaqdo isla markaana eed uu dusha iyaga ka saaro marxaladalku uu ku jira ayay aqbashay madashii mustaqbalka Soomaaliyeed markay aqbaleen baarlamaankii kalfadhigiisa toddobaad oo xirmay oo shuruucda baarlamaanku dhammaan ay farayaan wax alla wixii shuruuc labada bilood ugu horeeyay in laga shaqeeyo inay tahay ayaa la yiri baarlamaanka kalfadhigiisa dib ha loo furo dastuurkiina ha laga shaqeeyo ayadoo haddana ujeedada kale laga fasiri kara ay tahay in wixii laga heshiin lahaa oo doorasho iyo dastuur ba ahaa hadiiba dir buuq kale loo furay dib loo furay in madashu ay diido ayna tiraahdo ninkaan heshiis ma rabo waxba waqtigiisa naga lumin ha yiraahdaan iyadoo ujeedku u ahaa haddana markii tii ay iska socotay oo wixii ka dhacay ogsoontiin arbacadii oo ku beegnayd 28 in mar kale saakay iyadoo shalay lagu ballamay lagana heshiiyay taankiisii iyo ciidamadii iyo maxaan ku raasay ku imaan lahaayeen oo labada madaxweyne dowlad goboleed iyadoo laga heshiiyay saakay hawada in laga celiyo waxay mar kale ku tusinaysaa marka haddana mar kastaba inay ka go'an tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uusan rabin khilaafaadka siyaasiga ee jira in xal laga gaaro waxaan rabnaa marka ummadda Soomaalida aan u cadeyno waxa weeyaan ummadda Soomaalida waa marqaati dalkan iyaga iskala awooddan iyaga ka bilaabataa kuna dhamaataa qofka qaldan ee dalka burburinaya kala geynaya ee u nugleeyay cadawga maanta guda iyo dibadba leh kuwa kale ee u malafsanayana u sii nugleynaya inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud yahay halkan aan rabin lana rabo inaan taan gacmaha is qabsano odaygaas dalkan ka badbaadino arrinkaas halka markaan ugu gudbo waxaan rabaa inaan maanta yani runtii si adag u cambaarayo guddoonka baarlamaanka oo noqday aaladda koowaad